meesha aad tegaysiin in laydinku ogaado oo raashinkiina la idin joogteeyo oo biyihiina la idin joogteeyo oo qalabka iyo agabka aad u baahan tihiin la idin siiyo waqtiina ciidamadeena sabiib jooga ama kuwa bariira jooga ama kuwa meel kale aan geynay dhaqankeena shaqo inuu isbedelayo waa ogtiin Soomaa hadda dhaqankeena shaqo inuu isbedelayo cadowgu inay dareemeen Sooma ogidina waxaan rabaa oo aan maanta idinkugu imid inaan idin cadowga ala dagaalamaysan qada ka shaqeynaysaan naftiina aad soo hurteen waxaan idinkugu bishaareynaayaa laakiin inay hadda joogto dawlad diyaar u ah xuquuqdiina inay joogtayso laakiin xuquuqda askari walba si loo joogteeyo sidii aan hore u iri haddana aan ku soo celinayo askari walba waa inuu diiwaan gashan yahay number leeyahay meeshii lagu og yahay uu ka shaqeeyo si loo kala duwo kuwa shaqeeya iyo kuwa aan shaqayn askari walba oo loo diraayo shaqo ama khatar loo diraayana waa in loo dhammaystiraa agabkiisa si loogu dhammaystiro waana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay leeyihiin maamul hufan kala dambeeya oo ka madax bannaan musuqmaasuq hadii Ilaahay yiraahdo haddii ay jirto niyad xumo waxaan rabaa inaad qalbigiina adkaysataan askarta walaalihiina oo idinka horeysay oo shaqada bilaabay dhinacii loo diray cadowgu way ka ceyriyeen dhinac kale la idin diri doonaa oo la idinku aadin doonaa idinka maalmaha soo socda barbarkay ka baxdaa waa maxay dhinaciina yaanay dabayl ka imaanin sababtoo shaqada ah haysaan hooyooyinkiin iyo aabbayaashiin iyo walaalihiin iyo caruurtiina iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo mustaqbalkeena iyo cadow ku soo duulay ciideena iyo diinteena ayaa ka difaacaysaan guushii ummadda Soomaaliyeed way dhowdahay haddii marka aad tagtaan haddii Ilaahay yiraahdo qof idinkeedin kamid ah xuquuq ka maqan tahay ama agab aad u baahan tihiin ay idinka dhiman yihiin waa kan taliyo odawaay aniga toos ah ila soo xiriiro taariikhdii la soo dhaafay marka aad ha ugu mashquulina mustaqbalka hortiina eega idinkoo xuquuqdiina sugan tahay laakiin sharaftii iyo karaamadii calanka halkaas aad ku sidataan aad ku ilaalinaysaan dalkiina u soo hooyay ayaan rabaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan idin imaado marka dambe inta iska sokow waxaan leeyahay waxaad dalka u haysaan shaqo aniga iyo madaxweynuhu aanan u hayn shaqan cid kale aanay u hayn laakiin intiina gashan dharka lagu difaacayo dalka inta kale waxaad uga duwan tihiin waxaad soo hormariseen dhiiggiina waxaan idinkugu hambalyeynaa inaad sidaas yeeshaan laakiin waajib wuxuu naga saaran yahay xuquuqdiina inaan idin siino hal arrin oo kale aan rabaa inaan u sheego askarta walaalihiin iyo saaxiibadiina u sheegtaan in xuquuqdiina aa heshaan waa shaqadeyda iyo tan madaxweynaha waxa ugu muhiimsan laakiin xuquuqdiina waa inuu jiro nidaam sax ah oo la idinku siiyo soo sax ma sidaas aan isku ogaanaynaa waa idin soo duceynayaa Ilaahay ha idin dhib yareeyo shaqada aad aadaysaan waa idinku tashanaynaa waxaan rajaynayaa idinkoo guul keenay inaan idin imaado waa mahadsantiin